mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed iyo sarkaal ka tirsanaa booliska gobolka Banaadir oo isniintii la soo dhaafay ku biiray ciidamada militariga ee gadoodsan ayaa tiro geel ah iyo raashin uga deeqay ciidamada militariga taabacsan mucaaradka ee saldhigyo ka samaystay degmooyinka ku yaala waqooyiga magaalada Muqdisho. waxaan ugu horeen goobtan ka hadlay Faarax Cadaani oo ahaa taliyihii booliska degmada Yaaqshiid, haddase ka mid ah ciidamada ka gadoodsan muddo kordhinta loo sameeyey dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. magacayga Faarax Cadaani Maxamed waxaan geel ugu deeqay maanta ciidamada qudararka oo difaaca jidda hor jiraan waa qudararka afar waxaan ka codsanayaa saraakiisha dhammaan iyo ganacsatada iyo ummad kastoo Soomaaliya inay ka qayb qaataan ciidamada shaqeynaayo oo ummadda Soomaaliyeed qudararka shaqeynaayo si dowladnimo xor loo helo habeen imaan u taagan in la garab istaago ganacsatada siyaasiyiinta dowladda dhammaan qof kasta waxay ku beeri kartaa inay ku beerto. intaasi kadib waxaa madashan ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo dhankooda deeqdan ku wareejiyay senator Muuse Suudi Yalaxow. walaaleenoo soo dhawaada senator Xaaji Muuse Suudi iyo Cabdinaasir, dadka meesha jooga dad walaalihiina waaye, waxay idinkugu yimideen booqasho, waxay idinkugu yimideen dhiirigelin, waxay idinkugu yimideen garab istaag, waxay idinkugu yimideen bogaadan iyo hambalyo ayay idinkugu yimideen. waa faataxada idin wadaan, qalbi wanaagsan idin wadaan, waxay idin wadaan dardaaran ayay idin wadaan. soo dhawaada, waxaan u soconnaa waxaana hambalyada iyo bogaadinta oo guusha aad gaarteen aan idinla qaybsanaynaa. halkaan annagoo beelweynta Haaruun Wacaysla ah waxaan ugu imaanay ciidamadeena inaan garab istaagno oon muujinno. waxaa waaye insha Allah bidnillaahi kariim, waxaa waaye nabadan ilaahay ka baryaynaa, ilaahay baraka iyo khayran ka baryaynaa. awalba annagu cid ma doonanay, waa nala soo doontay saa annagu aaminsannahay. annaga meeshaan degannahay, ilmaan noo joogo, ilmo yaraa noo joogo, annaga degan nafteenni annagoo joogna xabada nugula soo riday mana istaahilno. aniga oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ah oo waqtigeygii dhammaaday oo aan ahayn madaxweyne sharci ah ayaan dalka dictatornimo ku haysanaa. ciidamadii oo intaa diidan inay dib intuu ku soo noqdaan magaalada Muqdisho asagii inay dib uga xoreeyaan ninka sababtu u noqday. ciidamada sababtaasi keenaya in Farmaajo ay dalka ka badbaadiyaan oo badbaado qaran ah oo ummadani Soomaaliyeed horumarkeeda inay ka shaqeeyaan maahane aan doonaynin in dalkani burburo ayaan saaki waxaan ugu nimaaday inaan bogaadino. ugu dambeynna senator Muuse Suudi Yalaxow oo gudoomiye deeqdan ayaa la hadlay warbaahinta in sharciga lagu soo noqdo ayagoo iskugu yeelay uga soo baxeen soo baxay kaalay qof ma dhihin, difaaca galay iska dhiciyo qof ma dhihin, laakiin ayagaa gartay waxay u dan leeyihiin waa Farmaajo kaliya inuu dalkan sharci la'aan ku joogaa. qof sharci darro qura dhaqmaysana ma jirtee oo hay'ad mataqaana dalkaani dadka shacabka wada mid noqdo. maanta 2-3 diyaaradood oo keen oo ciidan shalayna 2 keenay wuxuu soo daldaluhay waa dadkiina dila. wuxuuna leeyahay istaasan yeela baarlamaanka tagaa wixii tagaa baarlamaanka sharci ku taga ma haysto. baarlamaanka sharci oo ku yiraahdo saas ma jiro, sharci wax looga dhiga ma jiro. walax beenaho waa ka baxay oo leeyahay xaad ka baxda waaba been. arrintu saas waa idinkuna deeqdiina waana mahadsan tahay. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho.